qolada xamar joogta talaaniga goysa jiray ma qirsan yihiin inaynu ahayn laba dowladood lixdankii midoobay tan maanta sheegay ka hadlamayo karteeda waxa weeye war horta laba dowladood iswid ma ahayn ma gobol idinka mid aanu ahayn miyaana qabsateen xoog baan ugu qabsateen ereygaa madaxda xamar joogta kuwa hore iyo kuwa kan nin toos u aqbalaya ma jira cabdilaahi mar haddaan taa hore ee 4 sano ka hor ee isku aan lagaba heshiinayn sidee baa looga wada hadli karaa wax ka dambeeyay waxa weeye laba dowladood baynu ahayn waynu sunnay guraynu wada dhisanay uu dumay see loo dhisay laakiin haddaad tiraahdo waxaa midaan lahayn waan ku haystay baldhowna hawrigaa iyaga laga rabaa taas ilaa 5 goor bayna dhex galeen jimcada qurunka xaysan ninka ka wakiilka iyo igad qaar Afrika ka socday annaga afar qodob bayna u xidhay oo iyagana ku xidhay afarta qodob waxay ahaayeen kow maxaa isku haysaa waxaan isku haynaa xadka Ingiriiska iyo xadka Talyaaniga iyagu way diidantaa xad reer bay sameeyeen xad reer oo qabaliyana ku stuurana oo halku ku yaala labiyada su'aal adag ma aha haddii Afrika oo dhan qolqolo loo kala gooyo la soo celiyo farmaajo xamarka aan maayo madaxweynaha haddii Soomaali qolqolo loo kala beeraha heeray xadkooda war qarso iska cad marda taas oo dee xadka horun bay noo yaala waa qodob yaala oo nin walba daba ku noqday shan waxaan yiraahdeen joojiya xabad joojin ogolaada waa ogolaada waxay yiraahdeen hala siiday maxaabiista diyaar baan u ahay caawdaan jooga diyaar baan u ahay hadii laga helay sida ciidamada loo kala durkiya ha laga wada tashado waayo waxay leeyihiin ciidamada dib ha loo celiyo ana waxa leeyahay xadkii 70 kilomitir bay iga hadhay saan uga noqon dalkayga dhexdiisa arrintaa waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada ilaas wasiirka telefoon ma nagula hadleen waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay waraaq bay soo direen waa 8 bilood ka hor mid waraqada noo saxay kalsoonida inuu arrintaa idin gogolo waa saxay waa diiday isuuran baa soo gashay safiirku arrimaha dib soo hadlay intii la guul warqadii waa saxay afkii uu ka aqbalay waa saxay waay ilaa markay taagantay waxay midkii soo Afrikaanka ahaa wuxuu ka bilaabay halka dhexdhexaadiye xageebaa doonaysa isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa wuxuu waxaan geynaa Johannesburg waa ogol isagii baa lagu weeriyay hadda cidhowta waxay boor waran ka sheegay Turkiga war kaliya ku aqbalay meeyne caalamku kala soo dhex galo wuu aqbalay warqad soo celiyay hadda Ingiriiska Mareykanka EU Afrika baahan Yurub ka soo tagtay Sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la Ghana Accra si loo sameeyo gudi caalami ah oo Soomaaliya iyo Soomaaliya ka dhex gasho waxa hubaala in xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya walaal waxay mahay hadaynu Soomaaliland nahay warwar aan garano wayna isku dhimana xabad inaga daa aan wada hadal wax inaga dhaxeeyay waxaanu haynaa qora xamar joogto leh wada hadli ma yimino waayo naga mid baa tii nama diidi kartaa iyagana taas ka goob bal halka xal laga helayo odayaalo aanu ka fikirnaa hadda noo garabayno dadka caanka u garabayay gaalana markay meel gaarsiiyaba way kaga baxaan marka meel ay gaarsiinayaan way kaga baxaan